Markan waa muuqaalkii labaad oo aan rabno inaan diiradda ku sii saarno ka wada shaqaynta imtixaankii hore ardayda sideedaadka ee maadada xisaabta. Haddaba ina keena marka aan sii wadana marka let's go. su-aasha 13aad waxaa inoo qoran oo haysanaa haddii wuxuu leeyahay ururka A marka gudihiisa ay ku jiraan webiyada mara Soomaaliya oo loo qoro habka tixidda marka ururka A la rabaa in loo qoro habka tixidda in loo qoro ah webiyada mara Soomaaliya kow ba waxaa qoran marka ururka A Juba qoran kaliya taana waxaa qoran ururka A Shabeelle iyo Niila qoran urur Jana waxaa qoran ururka A Shabeelle iyo Juba qoran xaana waxay noo qoran ururka A Juba iyo Niila qoran. Haddaba marka jawaabta saxda ah la iska rabo webiyada mara dalkeena Soomaaliya maxay marka jawaabtooda markii la taxo qaab loo qoro tixidda ma ba mise ta mise ja mise xaba. Isku dayay jawaabta saxda ah waa saxan tahay marka maxaa sax ah oo ja sax ah maxaa webiyada mara Soomaaliya waa Juba iyo Shabeelle. Ay su-aasha 14aad waxay noo qoran uu leeyahay haddii ururka guud oo ga ah uu la mid yahay a ba a da i fa ururka baana uu la mid yahay a i ba i a uu la mid yahay waxaa la iska rabaa maxaa marka urur duleedka ba la iska rabaa qaab ahaan oo jaantuska vein inta ku qoran yahay soo loo muujiyay oo jawaabta marka waxaa qoran ba waxaa qoran urur duleedka ba waxaa qoran ba i fa urur duleedka ba mar labaad waxaa qoran da i fa jana waxay noo qoran urur duleedka ba a i fa xaana waxaa qoran urur duleedka ba a i fa qoran. Haddaba marka ka shaqeyno midaan oo waa kana marka intay noogu qoran tahay ugu horreyn waxaa la iska raxay tahay inaan soo helno ururkan ba oo a i ba i a ah waxa ka maqan oo ku jiro ururkan ga la iska rabaa a i ba i a waa isna maxaa maqan marka inta ku jiro waa da iyo fa waa marka jawaabtu waxaa marka da i fa marka waa kana marka urur duleedka ba waxaa waa da i fa oo inta ba ma ku jiraan laakiin maxay ku jiraan ururka guud ku jiraan kaasa xalla urur duleedka sa loo yaqaana oo wixii inta aan ku jirin inta ku jiro xalla marka urur duleedka ba waa oo jawaabta marka aan doorneen marka maxay noqonaysaa oo jawaabta aan doorneen waa kana midaan waa maxaa waa marka waa da iyo fa ay su-aasha 15aad waxay noo qoran wuxuu leeyahay marka aynu dooneyno in aan helno jibaarka jibaaran oo a ku jibaaran ma oo ku sii jibaaran na waxaynu isku dash muujiyaasha qoran marka waxaynu isku way dareenaa miya waxaynu isku dhufanaynaa miya waxaynu isku qaybinaynaa ama waxaynu isku aadinaynaa marka saxay marka ma la isku daraa muujiyaasha mise waa la isku dhufanaa mise waa la isku qaybinaa mise waa la isku aadinaa marka saxay bravo saxanta maxaa sax waxaynu isku dhufanaynaa waxa way oo muujiyaasha oo ma ay wax dhufanaynaa na oo maxay maanaa waa a oo ku jibaaran ma lagu dhuftay na aan imaanaysa marka. su-aasha 16aad waxaa inoo qornaysanaa dhirirka shakaalka saddexagalka ku sawiran dhinaca midig uu leeyahay waa dhirirka xadkaro shakaalka oo dhinaca shakaalka dhirirka shakaalka intee way qaybta ugu dheer ee saddexagalkan ay waxa loo yaqaanaa shakaal alla qaybtan ayaa waxa la shakaalka waa qiimaheeda marka meeqa marka oo 5 cm miya mise 4 cm mise 3 cm mise 12 cm qiimaheeda oo meesha uu qoriya meeqa marka waa 5 سنتيمتر واي وقيمة محا شكالك ميقوة 5 سنتيمتر واي مركان وسؤاشة 17 هيسانا oo waxay noo qoran wuxuu leeyahay waxaa lagu helaa xeerka fogaanta u dhaxeysa laba barood waxaa la iska rabaa qaacidada lagu helo fogaanta u dhaxeysa laba barood marka qaacidadan midda baada miya mise midda taada mise midda jaada mise midda xaada waa fiican u fiiri isku day midda saxda ina xarna aad doorano ay isku day waa saxan tahay haddii aad doorato maxaa midda baada waa oo sababtoo waa xiil laba jibaar waay xaada labaad laga jara xaada koowaad dhammaan laba jibaaran lagu daray yaada labaad yaada labaad oo laga jaray yaada koowaad oo dhammaan laba jibaarna la rabo marka kuwan kale maxaa ayaga taa ma noqon karto jaana sidoo kale xaana sidoo kale jawaabta saxda maxaa marka waa midda baada marka oo ah xiil laba jibaar xaada labaad laga jaray xaada koowaad dhammaan laba jibaar lagu daray yaada labaad laga jaray yaada koowaad oo dhammaan waxa laba jibaar waa xeerka lagu helo fogaanta u dhaxeysa laba barood waay. ay su-aasha 18aad marka idan waxay noo qoran wuxuu leeyahay barbartameedka xariijinta ku sawiran dhinaca midig marka xariijinta la iska rabaa barbartameedkeeda kala barkeeda qiimaha ku sawiran meeqa marka oo qiimahan ba miya oo -1, -2 mise 1, -3 miya mise 3, -4 miya
xa minus hal comma low miya halaa markay sax ay marka jawaabta saxda tahay waay oo meesha ku suran oo bartanka ah waaw waa saxanta maxaa waay qiimaheeda waa kana midaan waay oo waxaa marka hal comma maxaa waay minus 3 waay markaan su-aasha 19aad waxaa inoo qoran marka la isku daro xa loo qeybiyo 5 lagu daro 3 xa oo loo qeybiyo 5 waxa ay noqonaysaa jawaabta ba 5 xa oo loo qeybiyo 4 ta 4 xa oo loo qeybiyo 5 ja xa oo loo qeybiyo 4 xa minus xa oo loo qeybiyo 4 midda marka waxay rabtaa in laga shaqeeyo si jawaabtan aan u helno marka hadaba marka aan ka shaqeyno marka waa kana su-aasha intay noogu qoran tahay waa kana hoos inoo keen waa xa oo loo qeybiyo 5 waay oo waxaa ku dar rabnaa 3 xa oo loo qeybiyo 5 waay marka u fiirsano waxaa la fiirinaa hooseeyaha isku mid waa marka 5 iyo 5 waay hala qaadan doonaa hooseeyaha sareeyaha koowaad xa waay xadaas wax ku dari doonaa 3 xa marka ay hadii xa lagu daro 3 xa ma soo baxay marka kan hal xa kan 3 xa waay sugee maxay ma 4 xa waa 4 xa hooseeya maxay isna marka 5 waa marka oo jawaabtaas oo hel marka waxay noqonaysaa waa 4 xa oo loo qeybiyay 5 waa marka ba ita ija iyo xa marka kay sax ay marka oo waxa sax ay marka ta sax ah waa 4 xa oo loo qeybiyay 5 waa hadii inta ka fiirna marka waa kana imtixaanka oo jawaabta noqonaysa waxa 4 xa oo loo qeybiyay 5 waa markan su-aasha 20aad waxaa inoo qoran garaafka isla egta toosan ee laba doorsoome oo qaab noocan ah oo aada koowaad iyo xa balaas baada koowaad iyo ya ee la mid tahay caada koowaad haddana aada labaad iyo xa lagu daray baada labaad iyo waxay la mid tahay caada labaad isla egta noocan u qoran marka waa soo baranay oo laba doorsoome kooban xa iyo ah haddii garaaf lagu muujiyo garaafkooda isla egta wuxuu noqonaa xariiq xoodan waa lee mise xariiq kacsan xariiq toosan iyo xariiq jiifto waa saddexda afarta markay sax xariiq xoodan miya xariiq kacsan miya oo xariiq toosan miya mise xariiq jiifto waa oo jawaabta saxda marka tay noqonaysaa xariiq toosan waa oo jawaabta saxda maxaa marka ja waay oo xariiqda toosan waa marka u fiirsano su-aasha 21aad waxaa inoo qoran marka loo muujiyo leeyahay jibaar ahaan haddii jibaar ahaan loo muujiyo a lagu dhuftay a lagu sii dhuftay a kale lagu dhuftay ya lagu dhuftay ya kale lagu dhuftay ya lagu sii dhuftay ya kale waxay la mid tahay leeyahay marka ba waxaa qoran a ku jibaaran 4 iyo ya ku jibaaran 3 taana waxaa qoran a ku jibaaran 3 iyo ya ku jibaaran 3 jaana waxaa qoran a ku jibaaran 3 iyo ya ku jibaaran 4 xaana waxaa qoran a ku jibaaran 4 iyo ya ku jibaaran 4 qoran in waxarna marka ka shaqeyno oo jawaabta saxda ah door midaan kale in xirta laga shaqeeyo hadaba marka ka shaqeyno marka oo waa kana marka intay noogu qoran tahay waa haysanaa oo a lagu dhuftay a waay iyo lagu dhuftay ya lagu dhuftay ya lagu sii dhuftay ya kale waa marka u fiirsay marka aadan iyo isku mid waa maadaama isku mid diin hal xaba laga qaataa marka hal xaba qaadan doonaa meeqa xab waa marka ayaga 3 xabo 3 ku jibaar doonaa marka waa a ku jibaaran 3 ay iyana hal qaadan doonaa hal ya qaadan doonaa meeqa xab waa ayagani waa 1 2 3 4 ayagana 4 ku jibaar doonaa jawaabta saxda waxaa marka a ku jibaaran 3 iyo ku jibaaran 4 marka inta noogu fiiri jawaabteeda a ku jibaaran 3 iyo ku jibaaran 4 teewa marka midaan may waa kana marka midaan waa jaada maxaa marka a ku jibaaran 3 iyo ku jibaaran 4 hadii imtixaanka ka fiirino waa kana marka hadii imtixaanka ka fiirino waa tan marka waxa waay a ku jibaaran 3 iyo ku jibaaran maxaa waay 4 waa marka markan su-aasha 22aad waxaa inoo qoran dhinaca maqan ee shakaalka saddexagalka ku sawiran dhinaca midig waa dhinacan u dheeraa maqan maanta dhinacan u dheeraa maqan in waxaa rabnaa soo hel dhinacan u dheer marka magac ahaan waxaa loo yaqaanaa shakaal dhinacana maqan inaan soo helnaa rabnaa laba dhinac kale waa haysanaa jawaabta marka 6 cm ma soo bixi doonto mise 8 cm waay mise 14 cm mise 10 cm hadaba marka ka shaqeyna marka waa kana su-aasha intay noogu qoran tahay dhinaca marka oo dheer oo shakaalka xaraf ahaan c yaa loo qaataa dhinacan waxaa loo qaataa xaraf ahaan a yaa loo qaataa dhinacan waxaa loo qaataa b marka dhinaca u dheer marka oo c haddii la rabo in laga shaqeeyo qaacid ahaan waxaa lagu helaa qaacid ahaan dhinaca u dheer marka waxaa lagu helaa c oo laba jibaarna la waxay la mid tahay a oo laba jibaaran oo lagu daro maxaa waay p oo laba jibaaran waa ay ca oo laba jibaaran waxay la mid tahay doonaa dhinaca booska a marka maanta anaga waxaa haysanaa tiro marka tiradaas meeqaba waa 6 marka 6 oo maxaa marka laba jibaaran oo lagu daro dhinaca b-na waxaa haysanaa asana 8 waay waa 8 oo laba jibaaran waa marka ay ca oo laba jibaaran marka waxay la mid tahay dhihi doonaa
ay 6 oo loo jibaaro macnaheedu waxaa waa 6 oo lagu dhufanayo 6 kale waa maxaa noo imaanaya marka waa 36 waaye oo lagu daro marka 8 oo loo jibaaro idan waxaa waa 8 oo lagu dhufanayo 8 kale waa idan maxaa noo imaan doono waa 64 ay a oo loo jibaaro marka waxay la mid tahay doonaa sodii 6 lagu daro 64 maxaa noo imaan doono waa 100 waa marka ay si aan soo helna qiimaha a oo kaligiisa waxaa sameyn doonaa dhinacan waxaa gelin doonaa xidid maxaa loo jibaare intana sidoo kale marka ay xidid loo jibaarkan iyo wax la baxayaan labada jibaarka saaran caada ay qiimaha ugu dambeyn marka qiimaha a marka ugu dambeyn waxaa noo soo bixi doona marka a oo c ah ugu dambeyn waxaa soo baxay xidid loo jibaarka 100 meeqa waa 10 waa marka oo sentimitir marka jawaabta soo helna marka qiimaha a booska ugu dheer qaybtan marka ugu dheer waxaa marka waa 10 oo sentimitir marka oo jawaabta marka a miya oo mise ba miya jawaabta mise ta mise ja mise xawa oo jawaabta maxaa marka waa xawa oo 10 sentimitir waay hadii imtixaanka ka fiirno waa kana imtixaanka oo jawaabta marka waxay noqonaysaa marka dhinaca ugu dheer waa 10 oo dhinaca ugu dheer marka wuxuu noqon doonaa waa 10 oo sentimitir waa